xog cusub oo hadda soo gaadhay ayaa waxay tibaaxaysaa inaan shirkii Awaash ka socday ee Soomaalida iyo Canfarta lagu kala kicin laguna kala kici karin oo meeshu laba wadan oo la dhexdhexaadinayo aysan ahayn ee laba deegaan oo hal dal ah wada hoostaga wixii loogu taliyana qaadan hadalna aan ka soo celin karin oo la xukumo lagana adag yahay ahaayeen. haddaba hadalka dhanka Soomaalida ka soo yeedhay ee waa lagu kala kacay waa been oo wax ka jira ma jiro haba yaraatee sidaas waxa ay xaqiijiyay xubin goobjoog ah oo aan labada dhinac midkoodna ahayn balse qayb ka ahaa shirka. wuxuu intaasi raaciyay inay kooxda Nairobi ee Mustafa Cagjar wadaamiyo ogolaadeen saxiixana in dhulka galbeedka gobolka City ay Canfari leedahay Soomaalida deganna ay marti ku tahay laakiin loo ogol yahay inay iyagoo Canfar ka mid ah saamigooda qaataan oo la dhaqan geliyo heshiiskii dawladihii hore ee labada deegaan. xubin kalena wuxuu intaasi ugu siyaadiyay inaysan xataa Soomaalidu wax hadal ah ka keenin meelmarinta heshiiskii hore balse ay u riyaaqeen qalinkana horey kaga dugan. su-aasha isweydiinta mudan halkan ayaa waxay tahay haddii ay maamulka Cagjar qaadanayaan heshiiskii hore maxay kumanaanka shacabka masaakiinta ah ee galbeedka gobolka City iyo boqolaalka liyuga ah ku dhimanayeen. magaalada Qabridahar waxaa dhaawac halis ah la igu sheegay nin shacab ah oo ay koox ciidanka militariga Itoobiya ka mid ah xabad ku fureen isagoo bajaaj saaran. ninkan ayaa waxaa lagu eedeeyay waa sida xogtu igu soo gaadhay inuu dilaal u ahaa bakhaarhayaasha bakhaarka hubka iyo rasaasta ciidanka militariga ah ee Qabridahar degan muddo 6 bilood ahna uu hubka u kala iibin jiray ciidanka iyo shacabka balse isfaham waa dhaxmaray ciidanka oo isku afdhaafay kharashkii soo xarooday oo midkood lunsaday ayaa kuwii kale ku jaajuusay in dhibku yahay dilaalka sidaas darteedna inta loo yeedhay dilaalkii isagoo bajaaj wata markuu arkay in jawigu bedelan yahay inuu damcay inuu cararo kadibna xabado ay ku fureen ciidankaasi uu ku dhaawacmay waliba dhaawaciisu halis yahay. muddo 3 beri ahna ay isagoo dhaawac ku jirdilayeen xeradooda galabtana isagoo ishu ka laadlaado la keenay booliska gobolka. ninkan ayaa la xaqiijiyay inuu ka soo jeedo dhalasho ahaan degmada Raaso balse uu reer Qabdahar yahay magaciisana dib ayaan idinka soo sheegi doonaa.